Xaalado marba mar ka sii dambaysa sii kordhaysa ayaa laga soo sheegayaa adduunka xanuunka safmarka ah ee busbuska daanyeerada in lagu arkay wadamo badan oo caalamka ka mid ah. Fayraska busbuska daanyeerada oo keena qandho iyo finan barar wata ayaa ka soo baxa jirka waxaana laga qaadaa xayawaanka duurjoogta ah. Waxaase ilaa hadda la aaminsan yahay in bani'aadamka isugu gudbin karaan habab kala duwan. Welwelka faafidda ee laga qabo xanuunka safmarka ah ayaa sii kordhaysa kadib markii uu soo ritay dad badan oo caalamka ku nool. Meelo badan oo Yurub iyo Afrika ka mid ah ayaa lagu arkay cudurkan. Haddaba muxuu yahay cudurka busbuska daanyeerada? Maxaanse ka ognahay? Sideese la isugu gudbin karaa? Sideese looga hortagi karaa? Cudurka busbuska daanyeerada oo keena qandho iyo finan barar wata ayaa waxaa inta badan laga qaadaa xayawaanka duurjoogta ah, waxaase suurtagal ah inay dadka kala qaadaan. Xaalado sii kordhaysa ayaa laga soo sheegayaa ama looga shakiyay wadamo badan oo caalamka ku yaala. Busbuska daanyeerada waa virus caadi ah oo fudud kaasoo leh qandho iyo finan barar wata oo gaar ah kaasoo kasoo baxa meelo badan oo jirka ka mid ah. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn. Nooca loo yaqaano Konga oo aad u daran oo leh ilaa 10% dhimasho ah, iyo nooca kale ee loo yaqaano galbeedka Afrika kaasoo asna leh heerar dhimasho oo kala duwan. Sidee ayuu qofku ku qaadi karaa busbuska daanyeerka? Sida ay sheegtay hay'adda caalamka u qaabilsan caafimaadka ee WHO, fayraska wuxuu inta badan bani'aadamka uga soo gudbaa dhanka xayawaanka duurjoogta ah sida jiirka. Busbuska daanyeerka waxaa lagu kala qaadi karaa xiriir dhow oo lala yeesho qof ama xayawaan virus sida ah, dhibcaha neefsiga, walxaha wasakhaysan sida gogosha, taabashada nabarrada, dareerada jirka, cunista hilibka aanan si fiican loo karin, iyo waxyaabaha laga helo xoolaha cudurka qaba. Khubarada caafimaadka waxay ka digayaan sii gudbinta ballaaran fayraska inay sii kordhi doonto haddii aanan la ogaanin waqti hore kiisaska cusub. Caabuqa ayaa laga xaqiijiyay ilaa 9 dal oo Yurub ah: Mareykanka, Canada, Faransiiska, Belgium, Australia, UK, Portugal, Spain iyo meelo kala duwan oo Afrika ka mid ah. Intaan waa inta aan muuqaalkan diyaarinayno. Waxaa laga yaabaa inay kasii badan tahay tirada wadamada uu soo ritay fayraskan. Busbuska daanyeerada wuxuu ku badan yahay meelaha fogfog ee bartamaha iyo galbeedka Afrika. Wuxuu caadi ahaan soo bandhigaa qandho iyo qanjirada oo barara, taasoo qofka u horseedi karta dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan. Busbuska daanyeerada waa cudur iskiisa u xadidma, calaamadihiisana ay sii socdaan 2 ilaa 4 isbuuc. Laakiin waxaa dhici karta ayaa la leeyahay xaalado intaas kasii daran. Talaaladii la isticmaali jiray intii lagu gudi jiray dabargoynta furuqa ayaa waxa ay ka ilaalinaysaa fayraska. Si kasta ha ahaatee, talaalo cusub ayaa la sameeyay kuwaas oo mid ka mid ah loo oggolaaday ka hortagga busbuska.